بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هانك قدر الكدا هميلة جوجل وحاله وبسيم هذا الكدا أقون هناشا قدون هميلة التقان كسر له برنامج كتلاذة أرضية أو تضوات كيف مركب بحا يوتيوب كشركة جوتر كان استادي تضوات كوحن قارن دونا هذا إلهي إدمو محقف كأرضية وبهاني هاي قف كأرضية محو بهاني هاي قف كأرضية محو بهاني هاي إس أقون إنه سيقانو كم أنا هاي أنا دويد سأقول فالجلا هالكن تاجنا هالكن كسرعة سيدهم كتجا هي إسقيمين إنه إسقيمين كرو وحي ماش أمره يمر مرحلة كسبينه مركا قفك أرضك وحو بهاي هاي يدقلين يتسالوين هذا سوقاته قاعدين كريمة الشخصية qof kasta oo shakhsi ah wuxuu u baahan yahay koriimo qofka koriimada u baahan waxa waaye koow inuu haystaa dhiiranaan qofka inuu dhiiran yahay wax kasto sameeynaayo inuu la fargali karo labo inuu leeyahay aragti ama hadaf oo ama yool qofkii tiigsanayo qofka ardayga waxa loo baahan inuu qorshe leeyahay qorshe akhrin qorshe waqti ilaalin iyo qorshe la socodka waxyaabaha horumarin kara naftiisa wuxuu baahan qofka ardayga barasho inuu isbaro waxyaalaha oo aqoon inuu isbaro barashadaasi wixii sababi kartaa inuu ardaygaasi guuleysto wuxuu baahan yahay xirfadihiisa inuu horumarin inuu sameeyo xirfadaha qofka ardayga ku jiro waa inuu horumarin karaa waa inuu horumar la imaada horumar markasto waxa uu sameeynaayo inuu halka u taagan yahay ka tilaabo qofkaas ardayga ee marka waxa u dambeeyo waxa way goolalkiisa inuu imtixaan ku baaso goolashiisa inuu gaaro xidiga meesha inuu noqdo personal group intaas waxa marka uu soo noqono qofka ardayga ah tusaalooyinka iyo dhiirigelinta waxay sameeyeen in fikrado cusub in maskaxdiisa la caariyo in Allah musta'an dariiqooyin sax iyo tusaalooyin goolalkiisa sababi kara inuu la imaado qofka ardayga ah wuxuu u baahan yahay tusaalooyin xoogan horumarin kara guushiisa iyo dalkiisa tan saddexaad qofka ardayga wuxuu u baahan yahay inuu ogaado sida wax loo barto xeelad waxbarasho sida ugu fiican oo wax loo baran karo xeelad aqli badan oo lagu ogaan karo imtixaanka si ugu guuleysan karo helida iyo fahamka cilmi baarista waa inuu yaqaan ardayga inuu cilmi baarista sameey karo taasi waxay qayb ka noqon doontaa guusha ardayga waxa loo baahan yahay ardayga toddobaadkii mar baan ku qaadan karnaa isbuuciiba talada ardayga toddobaadyada soo socda waxa noqon doontaa insha Allah waxa la socon doontaan ardayga wuxuu u baahan yahay ardayga waxyaalaha cariya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah هديرت سميه وقال نفط هذا هرمرين كرا جوش هذا سمين كرا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.